guddi loo saaray ka soo tala bixinta dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee Somaliland ayaa maanta waxa ay yeesheen fadhigoodii ugu horeeyay ee arintaasi lagaga hadlayay Khadar Kaafi Muuse Cali ayaa warkaasi inoo haya horaantii toddobaadkii galbaday ayay ahayd markii madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo uu guddi taakuleeya dadka abaaruhu ku habsadeen u saaray guddidani oo ahayd mid isku dhafan oo ka kooban culimada iyo ganacsatada ayaa waxa uu madaxweynuhu gudoomiye uga dhigay madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici kulan ay maanta guddidani ku yeesheen qasriga madaxtooyada ayaa la iskula gorfeeyay sidii gurmad degdeg loo gaarsiin lahaa dadkay abaaruhu ku dhufteen ee ku baahsan guud ahaan bagayga Somaliland kulankani oo saacado badan qaatay isla markaasina warfidiyeenadu ay dibadda ka joogeen markii uu kulankani soo dhamaaday waxa warfidiyeenada si wada jira ula hadlay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ahna gudoomiyaha guddidaasi afayeenkii hore ee madaxtooyada imikana ah wasiirka ganacsiga iyo waliba imaamka Masjid Calimataan Sheekh Maxamed Aadan waxayna bulshada ka codsadeen in si degdeg loo gaarsiiyo gurmad degdeg dadkay abaaruhu ku dhufteen iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen waxaan kala jooga oo idin muuqda guddiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Silaanyo magacaabay taakuleynta dadka abaaruhu aafeeyeen jamhuuriyadda Soomaaliland sidii qaaraan loogu urur lahaa dibad iyo gudaba sidii ummadda reer Soomaaliya isku caawin lahayd sidii awalka dhaqanka iyo caadada noo hayd guddigu magacaabay halkan joogta waxaan u yeelanay shirkii u horeeyay oo laga tashanayay sidii loo hawlgali lahaa ee hawsha loo gudagali lahaa bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wassalaam ala rasuulillah sidoo madaxweyne ku-xigeenku sheegay maanta waxa kulan yeeshay guddida madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland uu magacaabay gargaarka iyo taakuleynta dadka abaaruhu ay naafeeyeen guddidu maanta ay shirkoodii ugu horeeyay yeesheen culimadii iyo ganacsatadii iyo xubnihii ka tirsanaa xukuumaddu halkan way joogaan kolley guddiyaal isku qaybiyay ha noqoto guddi ganacsiga culimo isku dhafa ama guddida xagga meediyada iyo guddida taakuleynta intaba hal mid baan arrintan uga faa'iideysanayaa waxa weeye meediyada intii ugu mudnayd way hor joogaan kuwa maqan iyo kuwa imika hor joogaba waxaan u sheegayaa waa mas'uuliyad qaran iyo damiir ummadnimo mid islaamnimo inay meediyada laftooda ay ka qayb qaataan inay fariinta guddida ay dadweynaha u gudbiyaan fariintaas waa maxay waa in ummadeena tabaalaysan dad iyo dunyaba deegaanada ay abaaruhu ku habsadeen in laga hawl galo oo qof walba wixii uu heli karayo uu huro sababtoo ah dadka maanta baahani ee dhibaataysan waa dadkeeni waa bulshadeeni waa kuwan wax ku ahayn waa kuwa aynu ku tiirsanayn waa kuwii ay garanaysa lafdhabarta dhaqaaleena ku tiirsanaa haddii ay maanta kuwaas waxba loo tari waayo waxaan filayaa dadnimadeena iyo ummadnimadeena iyo diinteena run ahaantii intaba waxa weeye waxay nagu khasaba inaan ummadeena u gurmano waa baahi dadkeennii haysata dalkeennii iyo dadkeennii haysata runtii waa baahiyaha laynagu imtixaamayo ee ilaahay inagu eegayo maanta sida aynu ka yeelo waa waxyaabaha diinta islaamku ina fartay inaynu isaga gurmano waxaa runtii jirta abaar baahsan oo dad iyo dunyaba jeedhay waxaa loo baahan yahay walaalayaal oo fariintayadu tahay in arrinkaa isaga loo wada kaco shayga koowaad aynu ugu kacaynaa waxa weeye inaynu ilaahay aad u barino shayga labaad ee muhiimkii waxa weeye ummadda oo dhani inay ka wada qayb gasho gurmadka isaga qof waliba sidii qofka walaalkii ee jilicsan ee maanta baahan wax gaarsiin lahaa waxa ay waajib ku tahay dawladda waxa ay waajib ku tahay ganacsatada waaweyn waxa ay waajib ku tahay ummadda oo dhan masaajidada oo dhan in ololo laga wado akoonadii loo furo saadkii loo furo iyo dahabkii loo furo dabadeedna ummadda qof waliba wixii uu karayo uu ku shubo deedna gacan aamini qaado halkeedii la gaarsiiyo taynu baahanay taa weeye warbaahinta ayaa cidda arrinkaas soo bandhigi karta gudbin karta ee waajibka koowaad saaran yahayna ah waa muhiim maanta warbaahintu maxaad war sheegi hadday ummadaadii baaba'ayso oonad warkoodii sheegi
kulankani ay maanta qasriga madaxtooyada ku yeesheen guddidani uu madaxweyne Siilaanyo horaantii bishani u saaray taakulaynta dadka abaaruhu ku habsadeen ee Somaliland ayaa ku soo beegmaya xilli qayladhaan abaareed laga soo sheegayo bariga bartamaha iyo galbeedka Somaliland. Khadar Kaafi Muuse Cali, TV-ga caalamiga Somali.